gacanka hadalkan ayaa ka dhashay fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo lagaga doodayay xeerka wadamarista cashuur kordhinta oo uu dhawaan u soo gudbiyay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan kadib soo gudbintaasi xildhibaanadu waxay dood adag oo la ismari waayay ay ka doodayeen muddo 2 cisho ah kaasi oo markii dambe dhaliyay ismaandhaaf iyo gacan saar mudanayaasha dhexdooda ah waxa iminka halkan xeerka soo gudbiyay guddiga janda ama guddiga arrimaha bulshada oo aan xaq u lahayn guddiga arrimaha bulshada oo aan xaq u lahayn inay golaha hor keenaan xukuumadda inay u tidaahdaan eegayay shacbigeeda shilinka la saaro neefka adhiga ah isagoo tabanjibaaro dib ugu soo noqonaya oo neefka adhiga kuwa wata markay hadhowta xoolo ama markay raashin ku soo bedeshaan waa la tabanlaabaya waxaan filayay in xeerkan xukuumaddu iyadoo ku xisaabsanaysa wakhtiga shacbigeedu ku jiro iyo baahiyaha dhaqaale xumeed taagan أنا أريد أن أقول عشور وهاي إن الحياة لك شريك